sheeka kasii la yaab badan ee maanta waxaan idin hayaa arrin cajiiba. arrintaasi uu uga sheekeeyey Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu uga sheekeeyey Muuse Biixi markii ay kulmeen iyo qorshihii lala damacsanaa Somaliland iyo in dekedan Sayla in gebigeegaba mar hore la siiyey Itoobiya oo uu farmaajo u saxeexay sidoo kalena ciidan awood badan oo Etoobiyaan ah iyo Eritrean iyo Soomaaliya ah oo isku dhafan inta la dhiso xoog lagu qabsado Somaliland. arrimaha iyo kuwa kaleeta ayuu Abiy Ahmed intuu fashilay Muuse Biixi farta ka saaray sirtii oo dhan. sidoo kale Itoobiya oo iyadana waxaan idin hayaa si toos ah Somaliland ula hawlgelaysa sidii ay u soo celin lahayd goboladii ka maqnaa ee Sool ama Huwantu halkaasi isku urursatay iyo ciidamadii soo qalin jabinayay hadda taliyihii ciidanka iyo saraakiil badan ay ku baqan yihiin Addis Ababa. waxyaabahaas oo dhan baan idin hayaa barnaamijka share gareey kuma soo dhawow meel fog gaarsii cadawga jamhuuriyadda Somaliland laabta ka naxeen. okay markii horta ururadii waa kii shalayto madaxweynuhu la kulmay ururadii markaa xisbiyadu kuma jirin iyo waxa la rabaa in si yar oo gaar ah loo yara sharfo ururadii markii ay la kulmeen wixii uu madaxweynuhu uga sheekeeyay ee uu ku soo arkay ilaa warbixin bay ka sugayeen waxay leeyihiin war maxaa Itoobiya noogu maqnayda bal noo waran warkii la isa siiyay oo aanu helnay ayaan idin hayaa. way waxa la yiraahdaa haddaba sida aanu anagu ka helayno arrintii ururadaasi meesha tigada iyo xogihii aanu helaynaan idin ka waramaya warbaahinta Digaal TV heshay. okay waxa uu yiri haddaba Muuse Biixi waa nagii tagnay Jabuuti markaa ka taranay safar kale ayaa noo qorshaysnaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo ku maqnaa oo Itoobiya. Abiy Ahmed waxa uu ku yiri markaa Muuse Biixi markooda luqad diblomaasiyad iyo waxba kula ma hadal. wuxuu yiri Muuse Biixi Somaliland na way baahan tahay anna waxbaan u baahanahay wax ma kala iibsanaa oo waxaad haysa anna maad iyo iibin ee dadkaagu ay hayaan adduunka waxba la isweydaarsaday anna waxaad u baahan tahay ma ku siyaana waxaad u baahanahay maadsi. waayahay baa leeyahay maxaad Abiyow u baahan tahay. wuxuu yiri Abiy Ahmed waxaan u baahanahay saldhig military anikaasa igu daran ka isi. okay waxa lagu yiri haddaba Muuse Biixi wuxuu yiri anagu waxyaabo badan baan u baahanahay dalka ay soo korayaan. arrinta koowaad waa ictiraaf. waayahay maxaa kale inaa berbera coordinate dariiqan la yiraahdo imika laba haado kaliya in laga dhigo 4 haad oo saa isku barbar yaacaya oo ilaa Itoobiya sida u dhaxmara ilaa iyo berbera. 3 in khatareen oo isku xidha berbera Itoobiya iyo sidii aynu u heli lahayn maalgelin kale oo Itoobiyana ka sii faa'iido Somaliland ka sii faa'iido Afrikada kale bilaad kada si berberi u shidanto Dubai u noqoto. waayahay buuri iyana waan aqbalay. okay soo daaba lagu yiri maxaad ku doorsanaysaa taasi waa ganacsi inoo dhaxeeyo oo inu kala iibsanano adna faa'iido marka tareenka la maalgeliyo adna faa'iideed ka heli wadadana intaada dhisan dawladuhuna wayna maalgelin kala xagga wadada iyo barnaamijyadaas iyo wixii aad nagala qabanayso. berberana baa leeyahay qaata afraad baa waxay in dekada berbera ad isticmaashaano Jabuuti baa dee 98% bay Jabuuti ka isticmaalaan 2% dekedaha kale oo ay berberi ku jirto. okay dekada berbera inaad isticmaasho wuxuu yiri markaa Abiy Ahmed waan ogolaaday berberana wixii aan u soo wareejinay inaan ilaa sanadkan 50% u soo wareejisto waxyaabaha aan soo dejisanayo iyo waxaan dhoofinayaba shidaalka oo aan rabnay inaan dhoofino 60% shidaalka aan la soo deganana aan ka soo dejisano berbera. way
haddaba waxaa la yidhi ciidamada dhanka kale ciidamada iyo barnaamijkii la galay halkan waan idiin hayaa Abiy Ahmed wuxuu yidhi markaa saldhigaasaan u baahanahay saldhiga military way haddaba waa maxay waxaan uga socdaa haddaba Abiy Ahmed markuu intaa la isiri wuxuu yidhi niyo Muuse bixiyo horta barnaamij baan u danacsanayn barnaamijkan aniga dekedan waaba deked la ii ogolaa oo ninkii farmaajo wuxuu ii saxeexay 4 dekedood oo ay ku jirto Saylac qorshaha kalena wuxuu ahaa in dekeda berbera la xidho Saylacna Ethiopia iska yeelato waxay doonaysaa ay kala soo degto ciidamo isku dhafa Soomaaliyana waxaan u baahanahay baa la shuruudo inay horta faragelinta naga daayaan maamul goboleedada iyo waxyaabahan la xiriira saaran degadiisaan in Somaliland iyo waxaasi loola dagaalamo sidii xiriirka looga jari lahaa dhinac walba cawaasif loogu furi lahaa waa tii keentay dagaalkaasi in la abaabulo oo barnaamijka la sameeyo xilligaasaana dagaalkan la bilaabay oo farmaajo uu ku talagalay inuu Somaliland qalalaasa ka rido Puntland ka rido barnaamijkaas oo dhan isku dubarido ciidan aad u adagna samaysto mucaaridkana madaxa kaga istaago digada iyo dambaska intuu cid walba ka dhigo ciidan isku dhafan oo Eritrean Ethiopian iyo Soomaaliya oo awood badan la sameeyo oo laga maarmo ciidamada kale oo dabeedna la wada yeesho waxyaabo fara badan la isla fahmo si aanu barnaamijka isku fulino dekadaha qaarna wax kala soo dagaalana guuri dekada Saylacna base ciidan kow iyo waliba waxaad ka samaysataan dekad idin gaarood idinku leeyihiin arrintaasi Xasan Sheekhna waxba naguma diidan oo uu ogyahay laakiin xoogay isyara wuxuu iska dhaadhicinaya dana kale ee yara sug iyo waxyaabo uu warwareejinaya waxaan arkayaa inuu hawsha ku dhici karay haddaba Muuse bixiyo adoo jaaniska ka faa'iideysanaya hawshaas lagula damacsanaa in Somaliland dhan la burburiyaa la rabay waxa kugu furan waanu arkanaa ee waliba qaar dalkayga ka socday waaraynu heshiinayno walaalo noqonayno iskacal qabano anna waxaagaysi aynu kala shaqaysano laba dal oo madax banaan ixtiraafkii way ogolaa waxa soo dhaweeyay ogolaa arrintan maanta markaa rabay waa arrintaasi Somaliland lala damacsana haddii aanu markaasi barnaamijkaasi maanta saxiixin madaxweynuhu waxan ay la cabaadayaan oo farmaajo gudka uga soo horbaxay waayo xuslaa Ethiopia waxay ka caawin doontaa sidaad mar kale u soo noqon lahayd waxyaabaha soo dhan iyo qorshayaal buu watay way kala kacday nimankii Soomaaliya markii la wax kala lagama cabaadayo waayo haddii Ethiopia ixtiraafka calanay Somaliland jecelihiin iyagaaba ixtiraaf ilaa oran war Somaliland soo ixtiraaf rabtaa ixtiraafada Ethiopia ba lagu kala tagay intaasayba ku dhanay intay qaylinayaan intay hal mar isku yimaadaan inay rahaan waran ixtiraafnaba taas waa mid nimankan markaa reer Soomaaliya horta wax kala lama qaylinayaan wax kala qablama cabaadayaan arrintaas jirta kuwa kaleeto oo secret oo fara badan oo aan shaacin oo la noo diiday in ka hadlaan way jiraan arrintaasi base kuna way soconaysaa Ethiopia la siinaya Mareykankuna way imanaya Ingiriiskuna way imanaya Ethiopia oo ixtiraafiyada dekada berberan oo isticmaalayaan hada wasalaam kalluunka iyo milixda iyo wixii halkaas ka soo baxana Ethiopia laga iibinaya dekadiina way isticmaalayaan saldhigana way karaysanayaan waxyaabaha kale ee la wada yeelanayo ee haday leyd jaban tahay haday ma aragtay waxyaabahan wala isdhexgalaya si warshadaha wadanku horumaraa waxyaabo fara badan oo ka halka taay ugu xaqi ee waxaad ogtiin in nuuxtaan uu bariyahan Addis Ababa joogo ciidamo badan oo saraakiil oo halka lagu tababarayay darajooyin qaadanaya horta oo jaamacadihii dhameeyay ciidamada ilaa 100 saraakiil ah maaha waa niman dhakhaatiir oo ciidan ka bartay niman injineer ah oo ciidan ka bartay niman hubka noocyadooda kala bartay niman pilot soo diyaaradaha bartay niman drones iyo waxyaabahan iyo waxa soo dhan bartay Ethiopia waxay maanta la diyaar tahay inay wax kaste sameynayso Soomaaliya barnaamij bay soo wadaa ay rabto inay saldhig weyn kaga dhisato laascaanood oo halkaasi Somaliland fal iyo wixii looga geysanayay hawl booqoodle ay ka dhistaan
sidoo kale Ethiopia waxay rabtaa in ciidamadeedii buuhoodle dhinaca Ethiopia soo dejisato halkaasi hawsha sidaa looga wado waxa weeye ciidamadii waxyaabo fara badan sameyn lahaana waa la soo taabaray ciidan fara badan oo Ethiopia oo meesha degan oo lagu soo taabaray nimankii qalin jabinayaan kuwa kale tan iminka qaadanayaan carbisay wada sameynayaan ciidanka Ethiopiaanka iyo ciidanka Somaliland ciidanka Mareykanka iyo ciidanka Somaliland ciidanka Ethiopia Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Somaliland carbisay wada sameynayaan Somaliland sidaas markaasi la rabaa in maalgelin kambaniyadii waaweyn ee Mareykanka iyo waxyaabahaasna hadda way imanayaan saldhigga military marka laga sameeyo intaasoo saldhigana waxay noqonaysaa mantaqad aamina Somaliland waxay noqonaysaa goobta laga ilaaliyo badda cas waxay noqonaysaa berberi Dubai waxa laga cabaadayo ee lagu ooyayo ee laga ciiliyo laga ay reer Soomaaliya ka cabaadayaan waa intaa iyo xaasidnimada barnaamijka sheer gareeya meel fog gaarsiiya aad baan